sida sawirka halka ay kaga muuqanaya ciidamada Puntland ee ka soo dagaalamay buuraha Calaamisaad isla markaasna kooxda argagixisada Daacish jilbaha u dhigtay ayaa daawadayaal haatan xirtay wadada gashay eelboorka Boosaaso waxayna ka cabanayaan in xuquuqdoodii ka maqantay isla markaasna madaxweynaha maamulka Puntland oo waxba ka soo qaadan ciidankan oo daryeel xumo ka muuqatay isla markaasna qaarkood naafa ayaa haatan ku qeyl dhaaminaya in xuquuqdoodii dib u helaan isla markaasna yihiin muwaadiniin aynan mudneen in banaan cidla loogu tago sidoo kale waxay ku qeylinayaan in dhowr mar ay cataabeen isla markaasna warbaahinta ka hadleen laakiin warkooda aan waxba ka soo qaadin ciidankan oo dhiigoodii iyo naftoodu horay maamulka Puntland isla markaasna ku taamiyay in Puntland ay ka mid noqoto meelaha dhulka Soomaaliya ugu udgoon isla markaasna ugu bilic qorxoon ayaa haatan u muuqan karaya in meel cidla loogu tagay haatan aan hadlayna xaalad adag ay la kulmayaan daawadayaal waxaan ku dul istaagi doonaa ciidamadii buuraha Calaamisaad ka soo dagaalamay oo haatan wada muhiim xirtay oo gashay eelboorka Boosaaso ayaan ku dul istaagi doonaa dhamaantiin soo dhawaad muuqaalka laag dhaaw sii share gareeya janalka hadda ku cusubtana subscribe dheh si maalmaad oo wararka ugu dambeeya gudaha dalka iyo degdega waata daawadayaal sida sawirada hordhacay kaga muuqanaya ciidamadii ka soo dagaalamay buuraha Calaamisaad ayaa haatan u xirteen wadada garoonka gashay Boosaaso waxayna daawadayaal haatan ciidankan ku andacoonayaan in xuquuqdoodii la dafiray isla markaasna madaxweynaha maamulka Puntland waxba ka soo qaadan ciidankan oo dhamaantood naafo badan ayaa sheegaya marka in maanta wax soo socod inuu jiri kareenin isla markaasna wadada haatan xirteena ay joogi doonaan ilaa fariintooda ama warkooda wax laga soo qaado ciidankan ayaana daawadayaal imika hortuban isbitaalka lagu daryeelayay waxayna sheegayaan in dhowr mar ay warbaahinta ka cataabeen warkoodana madaxweynaha maamulka Puntland uu dhageystana oo ka socday ciidankan ayaana dhigi maalmo horay maamulka Puntland waxayna 24 saac ka dagaalamayeen buuraha Calaamisaad kooxda argagixisada Daacishna oo ku dhuumaaleysanay halkaasna iyaga ayaa jilbaha u aastay isla markaasna haatanna shacabka Puntland kaga maacelinayaan laakiin waxa soo baxaysa in xuquuqdooda la dafiray maamulka Puntland waxba ka soo qaadan waxayna sheegayaan in banaanbaxan iyo jidgooyinkan haatan wadaana ay sii socon doonaan isla markaasna garoonka Boosaasana loo gudbi kareenin waxa soo socdo maanta jiri kareen ayna jirin banaanbaxan ay sii wadiyaan daawadayaal wali banaanbax waa soconaya ciidankana jidgooyinka dhigteenna wali waa sii soconaya walina waxay sheegayaan ilaa laga soo afgartana in xaaladan ay jiri doonto iyagana inay jiraanna loogu ogaan doono daawade wixii ku soo karbata isku hay muuqaalkan sii share gareey